deeqaan dhiiga mar walba labadaasi group waxa loo dhahaa ama kooxoodba mar walba wuxuu ugu yihiin dhimasho hooyaday haddii uu wareysato waxay u baahan tahay waxyaalihii loogu talagalay oo health education-kii ugu badnaa ama haddii ay baxdo postpartum hemorrhage oo kale in laga badbaadin karo kale markii loo eego kale kaalmahaas oo kale iyo qofkii dhiig uu shubayo kale ama qofkii lagu shubayo kale waxaa ka jira caqabado fara badan oo kale oo traditional ah caqabadahaas oo kale waxaan aragnay wiil aabiis u diiday dhiig lagu shubo aabiga isaga sii socdo dhiig maxaa lagu shubaa ugu dambeyntii waxaa munaasabada soo xiray Dr. Cabdiraxmaan oo ka mid ah bahwadaha wasaaradda caafimaadka marka waxay ku cadeynaysaa in xaaskiisa dhiig u shubo macnaheedu waxa waaye beel u sheegaa inuu dhaw nafan ku waraamo dhiig asaga markuu nafan ku waraamo macnaheedu waxa waaye dartaada u dhimanayo dhiig u shubo macnaheedu waxa waaye warkaas waxay noqonaysaa war iska shukaamisaya intaas haddaan uga gudubno Soomaaliya Abshkoor Cabdi Xaashi warbaahinta SBC magaalada Muqdisho ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay raashin dhacay oo loo waday degmada Baardheere ee gobolka Gadow sida faafahinta warkan markale inoogu eegay wariye Cabdirasaaq Cabdiqaadir oo nooga soo diray magaalada Muqdisho ciidanka booliska Soomaaliya ee garoonka Aadan Cadde ayaa qabtay raashin dhacay oo ay hay'adda WFP u waday degmooyinka Galbehaare iyo Baardheere ee gobolka Gadow ciidamada booliska ee